madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka Somaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ugu hambalyeynaya munaasabadda Ciidul Adxa ee sanadka Hijriyada Islaamka 1441 oo maalinta berri ah ku beegan, waxaana u rajaynaynaa inay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan barwaaqo iyo bashbash. ummadda Islaamka meel ay joogtaba gaar ahaan ummadda Somaliland. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta oo ay berri tahay ciidii Adxa ee sanadka Hijriyada 1441 waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Islaamka oo dhan, gaar ahaan ummadda Somaliland. sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore xajka. taariikhda intaynu maqalay waxa uu yahay sanadkii xajka loo tagi waayay cudurka adduunka aafeeyay ee covid. ilaahay hay naga badbaadiyo dhibaatada ilaahay naag mariyo wixii islaama iyo dalkeenaba. ilaahay waa inoo roo yahay, cudurku waa jiraa, waa se taag daran yahay. sida uu dadka u dhibay ilaahay waa inooga khafiifiyey, waa se jiraa dad badan oo dhintay. wixii dhintay Allah u naxariisto. marka in wali laga digtoonaado oo la isdhigano waa daw. ilaahay se waa inoo sahlay. dhammaan shaqooyinka oo ku noqonaynaa, iskuuladii waa lagu noqonayaa, nolosha caadi ahayd baynu wadaynaa. waanu jiraa waxaa sidee waajiba inuu taxadirkiina wadno oo aad sidii hore inuu cudur jiro la ogaado oo faraxal iyo wixii lagaga gaashaanay lagaga gaashaato. ilaahay waxaan ku rajaynaynaa dadka wixii buka ilaahay inoo caafiyo, wixii dhintay Allah u naxariisto, wixii dhiban ilaahay dhibta ka saaro. qof walba muraadkiisa oo macsiyo lahayn oo ilaahay haw fududeeyo. dal iyo dad iyo dunyaba Allah ha barakeeyo. dalkeena kii hore mara ee barwaaqa ee nabdoon ee dadkiisu soo gol yahay ee wax wada qabsanayaan Allah ka dhigo. inta aynu hayno Allah inuu siyaadiyo. Xamse Dabaare, RTN TV, Hargeysa.